وتقانان bulshada uu shaqeeyo marka qaarkood buuxiyo markii oo ugaas uu joogo ugaas haynin ugaas ma dhahan marka waa nabaqon cabdiqayr soofe oo ka socda xafiiska maayarka soo dhawaada tu socda cabdiqayr saamka soofe socda waxaan rabaa waqtiga igu kabo danteed inaad lawdiina hal minute ku qaadataan insha Allah soo dhawaada sidoo kale waxaa igu yeertaa ninka wasaqda xafiiska maayarka Alfred Akenier waa external affairs Alfred Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Aad mahadsantiin dhammaantiin. I know if you ask me yahay dadku wadaalin waxaa laga yaabaa goor hore inay imaadaan ilaa 6:05 p.m. anoo hadalka idiin soo koobaynaa مركز أنا وقتنا الماركتي سلامة بسوس هذه المفرقة على خيبر حسن على خيبر شرف بينهم تعاوننا كان كل جاني معنا سيار ماركتي أنا خطط الأولى سنة ورسعنا الخلط كاري ما نقدر نسوما تكون سير اسكت دوبان وكوك رسويهم وحن بدينا يا إن النصر المقتدي هو مدحوينا ما دام وقت الأولى هاي عاون سبيتش كي المحلوين في أنا شعلان سوايان هذا القصة بعدين يشرف إنت استيجي على غير صلاة مفران عبد الخير وأرمنت بكيجا كنت سيدا لسعتين هو بنا كصلاة من تيجا وكبدين كلاسة أولى إن شاء الله. waxaan arkay Soomaali markii madaxda hadlaysa dad badan oo ka taba hadlayanahay sax weeye hadda waxaad tirahdaan khayr weeye laa bahana aniga prime minister hore sheegay xaqiiqdii it is indeed a great honor to welcome another khayra in Columbus. Your Excellency, there is a saying that in the United States, Ohio goes, so goes the nation. So here it is indeed absolutely a great honor to have you with us in Columbus. It sounds like I was told this is going to be a welcoming event. It sounds like more a political endorsement. So, for the sake of the namesake, you have my unequivalent endorsement too. So, congratulations. waxaan sidaa la socotaan waxaa jira magaalooyin waaweynaa aad u waaweynaa historic ah oo hadda aan jirin adduunka ka jira magaalada adduunka ugu weyneyd at one time waxay ahayd maamulada Cyprus, the Persian Empire. ciid weeye hadda meesha waxyaalaha horseeda umadu inay barwaaqoodo oo ay sii koobto sida Maraykanka oo 300-400 sano ka hor la aasaasay haddana adduunka number-one-ka iyo in ay burburto oo baabaa noqoto sida magaalooyin qadiimi ah oo waaweynaa oo adduunka number-one-ka ah sida Barcelona oo kale waxaa laga gartaa leadership-kuna sideedaba waa public service waxaan waa khaadim ummadda u khaadimo inkaba buuda kasta oo covid qaato oo tuuto qaatana waxaa muuqanaysa in dadku aad ugu haweyn yihiin waa ku hambalyeynaya walaac badan baa jira iyo calaamado muujinaya dib u dhac iyo decline laga baqo inuu baaba horseedo ummadda Soomaaliyeed oo ka muuqda matalan halkan jaaliyadan waxaa ka mid ah walaalo uqumay isku dayay inay waxaan gacan ka geystaan markii masiibooyinkii sooba ay ka dhacay sanad ka hor buundooyin lafdhabar u ahaa bulshada ayaa burburay meesha la yidhahdo baar dheere oo hadda buundo aan lahayn buur dhuubo luuq oo liiqliiqanaysa beledweyne meesha la yidhaahdo dadku biyaha marka ay yimaadaan daadku yimaado geeday furan in aanay jirin wax dhaqaaq ah ama kaabayaashii
bulshada ay maqan tahay oo qayladaan madaxdii aan jirinin waxay aada niyadjab ugu tahay calaamadaha lagu garto decline-ka ummadu inay baaba'do boqortooyadii ajuuraan maraakiib ayay lahaayeen ilaa iyo Mozambique ay ku tegi jireen haddana buuldadii jidkii dariiqii ahaa ayaan jirin xitaa wax tabaqaada oo lagu jiro waxay noqonaysaa marka 500 oo sanadood ka hor meeshii Soomaaliya ay joogtay oo sultanadaas ay joogtay in hadda ay mandiqadaha gaar ahaan hadda ka hooseeyaan marka waxaan rajaynaynaa sida inoo samitigan u qaadatay inaad codkaagana ku beerin doontaa marka aad baan kuuga hambalyeynayna